in la fahmo horta balance diet qofka inuu fahmo cunno isu dheeli tirana waxay tahay wax weyn in Soomaaliya hadaan nahayna 90% dadka ma isticmaalaan balance diet oo cunno isu dheeli tiran lama cuno kaliya waxaan naqaanaa saxan bariis inaan cunno din yani like in caloosha la buuxiyo wax loo cunaa qofka inuu dhergo marka muhiimadda nutritionka ama cunno caafimaad la muhiimadeedana waxay tahay qofka inuu fahmo intee miqyaas u baahan tahay protein intee miqyaas carbohydrate u baahan tahay maxaa vitamin ku ah maxaa mineral ah maxaa fat oo healthy fat ku ah isticmaalaysa inuu qofka fahamsan yahay magacayga waa Amira Sawakar in taariifteedana waxa kamid ah horta bahda caafimaadka waxa diyaariyay laba batch oo kala ah medical lab technician oo shaybaarista ahay batchkayga labaadna waa human nutrition and dietitian oo waxa ah aan yaqaan isbitaalna waa ka shaqeeyaa oo dhanka labka in sida caadiga ah online coach ah dhanka nutritionka in waxa ahay asaasaha bandhiga cunnada caafimaadka leh in sanadka hore qabanay waxa rajaynaynaa sanadka xiga inaan qaban rabo dhawaan insha Allah in barnaamijka health diet programka ama barnaamijka bandhiga cunnada caafimaadka leh in reasonka iyo hadafka yani waxa nagu dhaliyay inaan sameeyno waxay tahay in maadaama bahdi caafimaadka aan nahay qaasatan cunno yaqaanadii wadanka waxa ka jira gaab fara badan oo dhanka cunnada oo dadkii faham badan kama qabaan marka si aan u cadeeno yani anaga isu keenayna dadkii ehelka ahaa barnaamijka haday yihiin in isbitaaladii haday yihiin jaamacadihii lagu baranayo nutritionka in meelihii gymka dadka bardhagtay sameynaa intaba marka anaga bulshada ina ooga faa'iideeno in fahamsiinana cunno caafimaad la bixiyo siyaabada waxay tahay yani in horta dadka waxa jira dad over age ah waalidiin waaweyn oo qabo cudurrada chronic disease-ka in waxa jira hooyooyin uur leh dadka miisaanka iska dhimay dadka korinay intaba waa isu keenaa kadibna in mid walba targetka and positionkiisa waxa u sameeyna overview يعني dadka chronic disease ka qaba guud ahaan hadii kaliya ka jiran yihiin hadii kor qabaan haduu dhikar qabo qofka ina fahamsiino horta cudurku uu qabo wuxuu yahay dan in haduu san cunin cunno healthier ama caafimaad leh dhibaatada ku imaan karto dan cunnooyinka loogu baahan yahay cunnooyin kareebtoon inta baa u sharaxnaa dan waan u soo bandhignaa maadaama bandhig uu yahay qada quraac casho diyaarsan u soo bandhignaa tusnaa qofka si uu u diyaarsado in qaar kamid ah isbitaalada magaalada hadda way jiraan dhaqaatiir dietitian oo fadhiista in markii hore ma jirin wadanka aad uga yara oo dhakhtarka medicalka asaasoo aha dhakhtar nutrition badankoodna maybe inay diyaariyaan nutrition oo dibloomoyin ah si yani tusaalahan qofka kidney disease uu qabo oo makliyaha uu ka jiran yahay waxa jira cunnooyin khalad ah inuu isticmaalo marka qasab waxa noqonaysa dhakhtarka inuu fahamsan yahay marka almost sida caadi nidaamka waxa loogu talagalay isbitaal kasto inuu joogo qof dietitian ah si yani cunnada dadka looga saxo marka hadda wadanka iyo wadciga wadanka ka jiro waa la fahmayaa oo hospitaalada qaar waxa oga inay joogan dhaqaatiir dietitian in dhakhtarka dietitianka waxa waaye waa dhakhtar bartay cunnada in cunnooyinka yani asaaska cunnada asaaska nolosha waa qofka bini'aadanka yani xitaa dhakhtarka medicalka markii laga soo tago in awlawiyaadka waa dhakhtarka cunno yaqaanka because of qofka haduu gas qabo tusaalahan in haduusan iska joojinin cunnooyinka loogu talagalay yani dad cunnooyinka acidka ama gas ku kicinaya qofka ama waxyaabaha dufinta leh yani dhakhtarka haduu kaniini u qoraxta yani qofka ma caawin karto illa uu joojiyo daawooyinkaas marka dhakhtarka cunno yaqaanka wuxuu bartay cunnada in qaybaheeda kala duwan noocyada uu kala baxo iyo faa'iido uu leeyahay intaba marka qofku wuxuu ka caawinayaa inuu cunno caafimaad leh tusaalahan dadka chronic disease ka qaba like qof diabetic qaba ama cudurka sokorowga qabo in haduu dhakhtar u tago يعني داوينا جرو يعني daily life كيسا u soconayo qofku uu isticmaalayo haduu san cunnada ka saxnayn qofka ama cunooyinka yani ka reebtoona qofka sokorta qaba haduu san isticmaalin yani uu joojino isticmaalo daawada si kasta u qaato xataa wixii u taraysa malahan marka waa muhiim barnaamijka ku shaqeeyo oo ah ina ah online coach ani ahaan almost muddo 3 sano 4 sano ku dhawaad ku shaqeeyaa dhankaas in dadka waa siinaa counseling mar walbana targetka waxa saarnaa in khaasatan waxa targetka saara cunnooyinka available ka wadanka laga heli karo waliba kuwa ugu raqiisan yani in qofkii anoo fiirinayo maciishada dadka yani dadka isku level ma aha dadna waxay awoodaan inay marketyada ka soo adeegtaan dadna suuqa inay ka soo adeegtaan xawaa ku yar adag marka mar walba waxa u fiirinaa qof walba ila soo xiriira horta qofka ina u fiirino in level ku jira iyo muxuu sameeysan karaa because of qofka history tekina ka qaadaysa intaadan wax u qorin then wadankeena wuxuu reach ku yahay qudaarta waxyaabaha ugu badan oo qofka yani healthier-ka ama cunno caafimaad marka la sheegayana yani wax ugu muhiimsan qofka waxa waa inuu yani waxyaabaha qudaarta uu isticmaalo midka ku imaaday oo ku dhaho yani storage ama waxa u baahanahay counseling ina isiisid like in cudurka qaba sokora qaba ina cunnada iska saxarba ama miisaanka raba ina iska dhimo
dhibaatooyin badan kala kulanaa in yani routiinka iyo jadwalka ay wadaan marka shuruudahayga waxaa kamid ah qofka counseling siinaayo waxaa masti ah qado quraac casho iyo xilliyada snacks kala isticmaalaya yani qadiga quraac inta u dhaxayso iyo quraac iyo casho qado inta u dhaxayso cunooyinka la isticmaalaya kulli yani inuu picture iga soo qaado oo daily u soo diro yani qofka haduusan sameyn karin inuu yani lacag isoo dirin oo iska qasaarin lacagtiisa because of qofkii marka uu isdiiwaan geliyo processkii programka u bilaawdid cunadii aad u qortid 1 week haduu wado isbuuc kale ka caajisay ma wada marka caqabadaas way iska jirtaa yani muhiim ma qofkii inaa dhahdo cunno caafimaad la cun muhiim waxa ah qofka horta haduu san cunin cunno caafimaad leh dhibaatada ku imaan karto inuu fahmo marka qofka haduu fahmo caqabada ama dhibaatada waxa fududaanayso waxaan xalkeeda inuu helo ama u raadsado